cafiska cadaalada ka dambeey karta wadadku waa isla xisaabtami karaan magdhow ay isiin karaan waxyaabo badan ay ma karaan laakiin cafiska waa furaha wada hadalka iyo heshiiska hadii aan is cafino faa'iidada ugu horeysa ee aan helayno waxay tahay caafimaad nafsi ah qabiil way dawarjay igada qabiil way tuleeyay igada qabiil qarmaay deeqay aniga curadkaygii oo Cabdirasaaq Ismaan Cabdullaahi la yiraa oo ciidanka booliska ka tirsanaay oo saldhiga hodan oo beriga lambar 4 ku yeelay ka tirsanaay waxaa dilay hoteelka ka soo horjeeda ee Naasaablood nin ka tirsanaa ilaaladiis magaciisa hadda ma sheegayo laakiin hortiina ka ballan qaadaya inaan diyaar u ahay inaan cafiyo ummadda dhan ee Soomaaliyeedna waxaan ka codsanayaa in la iscafiyo waxa la yiraahdaa dadka guuleystayaasha ahi markay waayaan jawi ay guushooda iyo halabuurkooda ku soo bandhigtaan isla mugdiga laftirkiisa waxay ka samaystaan jawi ayagu ay u baahan yihiin dad baa arrimahan cafiska u arkin ahmiyad laakiin aniga waxaan aaminsanahay markii naloo soo bandhigay u aragnay inay tahay wax runtii muhiim ah cabdiweli saaxiibkiisna waa dad daraasad dheer sameeyey runtiina muddo ka shaqaynayay marka waxaan aaminsanahay culimmada Soomaaliyeed iyo qof kastoo Soomaali ah inay mas'uuliyad ka saaran tahay sidii barnaamijkan ku noqon lahaa mid mara dhala mid sii socda mid aan uga soo harno Soomaali oo hal ah cafisku waa ka weeyaa hal maalin dhibka aan isu geysanay hal maalin waa ka badan yahay dadku waxay ku su'aalayaan yaa wax cafinaya yaa la cafinaya ma qabiil cafinaya ma sideen muxuu yahay anaga balaankeen ama qorshaheenu muxuu yahay qorshaheena la idin fasir maayo waa saddexdii documentary halkaas ka daawateen waxaan doonaynaa inaan ina wacyi gelino oo waxaad ku daasheen in maalin kasta la idin kaga sheekeeyo Soomaali faquuqaya Soomaali dilaya idin la kaga sheekeeyo ku daasheen waa in ka bedelaynaa waxaan ku shubaynaa Soomaali jecel wanaag jecel isu soo dhawaanaya mustaqbalkooda wada dhisanayaan in ku quraynaa adinkuna waxaan ka codsanaynaa inaad naga yeeshaan qabiil way dawarjay igada qabiil way tuleeyay igada qabiil qarmaay deeqay igada dhalinyaroy waa inaan dhahnaa jidkii hore halkaan aan ku joojinno nolol cusub aan bilowno sida dadka ficeen ay u nool yihiin aan u noolaanno wixii dhacay waa taariikh aan wax ka baranno laakiin aan xumaanta uga daysanay howlo badanaa bilowdo waaya ma ogeed qabiilaan isdili jirto hey ummaddu qabiilay isu laysaa kuwii anunka aan istirna isku baaba'no oon ku dad ya deeq weyna kuwii tawara haddii kuwii hadda inta oday soo dirsadeen cafisaan nala cafiyo waydan cafayna ay keeneen anigana inta fiirtay anigu dad iskama cafiye islaantayda xalwa deeqa aheedoon wax iga cafin haddaan cafiyo anaa cafiska hoose gelaaye aan ka niraa allahu akbar عفس بابا هيجو سوق قادر أكون عفس بابا يلايو سبحان عفسك كنت هذا أنا وحفن ولا سعفيات أي قبوا الله إنه وقت هاي أنا إسكعفن ابني أقدر صدح جروب ربنا إنا إسكو كاشدان دولتنا ده كورك كيلا لسوي كعوس وعلماء ودق فوضنا هاي وأبوان هذا يو فنانين تهلك كوار كيسين
iyo wariyaal cilmiyeysan ee dadka ku wacyigeliyo warkooda u gudbiya ummadda waa intaas horta cafiska la idiin sheegaya meeqa ayaa aaminsan waxaan u baahannahay inaan helno hal maalin oo aan u cilaansanno maalinta cafiska ummadda Soomaaliyeed waxaan rabaa inaad gacanta taagtaan waa maasantiin madashan oo ay isugu yimaadeen bulsho aad u badan ahna bilowga ololaha cafiska Soomaaliya oo ku beegan maanta oo ay taariikhdu tahay 28 bishii 6 2018 haddii alla idmana sanadka dambe waxaan rajaynaynaa maanta oo kale inaan samayno isku soo bax iyo waliba shacaaro iyo bandhigyo ka fiican midka maanta aan isugu nimid ama ka sii qiimo badan si aan u muujinno hanka iyo himilooyinka rabitaan ee aan u hayno maalintan ugu weyn waxaan ku garab taaganahay shaqada aad wadaan tiimka cafis oo dhawaad ku garab taaganahay meel kasta gobol iyo degmo iyo tuulo meeshii loo baxayna waan idin la shaqaynayaa cafiskuna maaha wax maanta kaliya dhamaanaya ilaahay baa quraankiisa ku sheegay oo yidhaah la iscafiyo 3 shay aan caloosha waxba la isugu haynin